wasiirkii horeeta arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku eedeeyay Ruushka inuu ka dambeeyay weerar dhanka internetka ah oo lagu qaaday kombiyuutarada xogta dowladda lagu kaydiyo oo lagu tilmaamay inuu yahay midkii ugu baahnaa abad ee lagu beegsado Mareykanka intii uu xilka ka hayay. isku dayga jabsashada xogaha kombiyuutarka Mareykanka ayaa markii ugu horeysay lagu bartilmaameedsaday shirkadda Mareykanka laga leeyahay ee SolarWinds ee sameysay barnaamijka kombiyuutarada. isku daygaasi ayaa bilowyin socday, hase yeeshee xukuumadda Moscow ayaa ayadaasi iska fogeysay. dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay in aysan arintaasi waxba aysan u dhimin amniga hubkeeda nuclearka. sidoo kale hay'ado wadamo kala duwan ku sugan oo ay ka mid yihiin kuwa laga leeyahay dalka Ingiriiska ayaa weerarka dhinaca kombiyuutarka ah lagu qaaday iyadoo la adeegsanayo habka isku dayga jabsashada xogaha Mareykanka. cilmi baarayaasha loo xil saaray ka hortagga weeraradaasi waxay sheegeen in arintani si buuxda loo fahmo halka ay ku socoto weerarada dhinaca internetka ah ee Mareykanka lagu qaaday. haddaba Mike Pompeo muxuu ka yiri? wasiirkii horeeta arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka oo wareysi siiyay idaacad ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in weerarkaasi uu Ruushka ka dambeeyo. weeraradan ayaana waxay socdeen bilowyin dhowr ah iyadoo la beegsanayo hay'ado iyo shirkado laga leeyahay dalka Mareykanka kuwa oo ay maamusho dowladda. si la mid ah wasaaradda tamarta ee dowladda Mareykanka waxa sidoo kale la bartilmaameedsaday hay'ado kale oo dowladda dhexe ee Mareykanku ay leedahay oo ay ka mid yihiin khasnadda guud ee Mareykanka, wasaaradda arrimaha gudaha, arrimaha dibadda, difaaca iyo ganacsiga. Pompeo ayaa ku sheegay in baarayaasha Mareykanka ee hawshani loo xil saaray ay weli ku howlan yihiin sidii ay xog buuxda uga keeni lahaayeen weeraradaasi muddada bilowyinka ah qaatay ee Mareykanka dhanka internetka looga soo qaaday. Ruushka ayaa doonaya ayuu yiri in uu habnololeedkeena u weeqo, isagoo intaa ku daray in madaxweyne Vladimir Putin uu yahay khatar weyn oo weli taagan taasi oo dunidu ay wajahayso. haddaba muxuu ka yiri madaxweynaha xilligaasi Mareykanka ka talinayay? madaxweynihii horeeta ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa laba fariin oo bartiisa Twitterka uu soo dhigay ka hor inta aanan aaladaasi laga xayirin ku sheegay in ay dhacdadani ay tahay mid been abuur ah oo warbaahintu aad ay u buunbuunisay. Trump ayaana dhowr jeer lagu eedeeyay in uu garab buuxda ka helo Ruushka, taasi oo eedeyn badan ay ka dhalatay doorashadiisii 2016. waxaana Trump intaasi uu ku daray in weerarkaasi la xakameeyay wax walibana ay si wanaagsan ay haatan gacanta Mareykanka dib ugu soo noqdeen. Ruushka ayaa inta badan farta lagu fiiqaa markastoo ay wax dhacaan iyadoo arrimaha dhaqaale lala xidhiidhiya, balse waxaa suuragal noqon karta in uu Shiinaha weeraradaasi sidoo kale uu ka dambeeyo. Donald Trump iyo Mike Pompeo ayaanan had iyo jeer isku aragti ka ahayn dalka Ruushka. Trump oo aanan ka hadlin hadalka ka soo yeeray xogayihiisa arrimaha dibadda ayaa sidoo kale wax cadeynaha ku saabsan in uu Shiinaha arintani ka dambeeyo aanan soo dhigin, marka laga reebo inuu Shiinuhu uu ku magac dhabay in weeraradaasi suuragal ay tahay in uu isagu ka dambeeyo. madaxweynaha cusub ee dowladda Mareykanka dhawaan loo doortay ee Joe Biden ayaa dhankiisa la filayaa in uu bilowyinka soo aadan warbixino dhammaystiran uu ka soo saaro dhacdooyinkii dhacay intii Trump uu xilka hayay ee dhanka kombiyuutarka loo adeegsaday. haddaba ma la socotaa in Ruushka aanu ahayn kaliya weerarka uu ku soo qaaday Mareykanka ee haatan loo adeegsaday kombiyuutarada intii uu xilka hayay Trump aanu ahayn mid ku eg, balse Ruushka uu 5 jeer oo horeeto weeraro dhanka internetka ah ku qaaday Mareykanka. weerarkii koowaad ayaa waxa uu ahaa weerarka loogu magac daray Cog Egg, qofkii ugu horeeyay ee ay dabagal ku sameeyaan burcadka internetka ee ajaanibta ah ee qaadaya xogta xasaasiga ah ee Mareykanka. ma ahayn jaajuus, laakiin waxa uu ahaa cirbixiyeen ka walwalsanaa bixinta 75 senti oo dollar. ninkan ayaa lagu magacaabaa Cliff Stoll, kaasi oo la weeraray shabakadda kombiyuutarkiisa sanadkii markii uu ahaa 1988. waxa uuna dareemay in uu qof kaleeto aaladiisa kombiyuutarka xilligaasi uu la isticmaalayay. cirbixiyeenkan ayaana xilligaasi ku guda jiray cilmi baarisyo uu ka sameynaya dhanka hawada sare. weerarka xiga ayaa waxa uu ahaa weerarkii Moonlight Maze loogu magac daray. 10 sano kadib bartimeeyadii sanadii 1990 ayaa la ogaaday ololihii ugu horeeyay ee basaasnimo ee dhanka internetka ah ay fuliso hay'ad sirdoon oo dowladeed. nambarkan loogu magac daray Moonlight Maze, inkasta oo qaar ka mid ah macluumaadka nambarkaasi aanan weli la garanaynin, laakiin tani waxa ay ahayd xog heer sare ah oo jabsashada internetka loo adeegsaday, taasoo ay adeegsadeen kooxo dahsoon oo wax ku dhaca aaladda kombiyuutarka. weerarkani ayaana waxa uu ahaa
weerar lagu eedeeyey inuu ka dambeeyo ruushka, waxayna doonayeen xilligaasi in ay xadaan sirta Maraykanka ee ciidamadiisa militariga. Burcadda ayaa waxa ay qaateen xilligaasi macluumaad aad u tiro badan iyo xogo badan oo ay ka qaateen xubno ka tirsan saraakiisha difaaca Maraykanka, waxaana lagu eedeeyey weerarkan in ruushka uu ku lug lahaa. Weerarka xiga ayaa waxa uu ahaa weerarkii Pyongyang loogu magac daray. Sanadii 2008 aaladda USB-ga oo macluumaadka lagu kaydsado oo ay ka buuxaan waxyaabaha lagu jabsado kombiyuutarada ayaa laga helay baakin gawaarida la dhigto oo xilligaasi ku yiilay saldhig ciidamada militariga ay ku leeyihiin magaalada Washington ee dalka Maraykanka. Aaladdan ayaa ogolaanaysay in ay dhex galaan dhammaan kombiyuutarada ciidamada Maraykanku ay leeyihiin ee halkaasi ka agdhowaa, taasi oo u sahlaysa in xogaha ku jira kombiyuutaradaasi ay jabsadaan. Waxaana taliska dhexe ee dowladda Maraykanka arrintani ay ku qaadatay baaristeeda muddo 4 bilood ah. Weerarkan ayaana loo aqoonsaday looguna magac daray Pyongyang, waxaana sidoo kale weerarkan lagu eedeeyey dowladda Ruushka in ay soo abaabushay. Aqalka kriminaalka ayaa dhowr jeer lagu eedeeyaa weerarada dhanka internetka ah ee loo geystay dalka Maraykanka. Weerarka xiga, weerarkan ayaa isna waxa loogu magac daray The Democrats. Sanado kadib, Shiinaha iyo Maraykanka khilaafkooda iyadoo laga dhex faa'iideysanayo ayaa waxa la bilaabay in Maraykanka xogtiisa ganacsiga iyo kaydka wasaaradda ganacsiga ee dowladda Maraykanka la jabsado. Laakiin Ruushka intii lagu guda jiray doorashadii madaxweynaha Maraykanka sanadii 2016 waxaa soo baxday in kooxo sirdoon oo Ruush ah ay jabsadeen xogaha xisbiga dimuqraadiga ah ee dalka Maraykanka, kaasi oo haatan ku guuleystay talada dalka Maraykanka. Kooxda ka socotay wakaaladda sirdoonka ee SVR ee dalka Ruushka ayaa loo aqoonsaday in weerarkani ay ka qayb qaateen iyagoo adeegsanaya sirdoonkooda JRU-da loo yaqaano. Laakiin Ruushka ayaa sidoo kale lagu eedeeyey weeraro badan oo dhanka internetka ah oo dowladda Maraykanka loo geystay. Weerarka xiga ayaa waxa uu ahaa weerarkii isna loogu magac daray Sunburst. Waxa ugu dambeeyay weerarkan dhanka internetka ah oo lagu qaaday kombiyuutarada xogta dowladda Maraykanka, waxaana weerarkani lagu tilmaamay inuu yahay kii ugu baanaa abid ee lala beegsado kombiyuutarada xogta Maraykanka ee ku jirta. Dowladda federaalka ee Maraykanka waxa ay ka hadleen khatarta aadka u weyn ee weeraradan dhanka internetka ah kuwaasi ee soo noqnoqda ee lagu qaado Maraykanka. Si kastaba ha noqotee, dhammaan inta la hubo weerarada lagu qaaday dalka Maraykanka ee dhanka kombiyuutarka ayaa lagu eedeeyaa aqalka kriminaalka ee Ruushka. Xukuumadda Moscow ayaana sidoo kale iska fogeysa dhammaan eedeymahaasi ay u soo jeediyaan dowladda Maraykanka. Ruushka iyo sidoo kale Maraykanka ayaa muddooyinkii la soo dhaafay xurguf ay ka dhaxaysay